dowladda Itoobiya ayaa mar kale waxa ay soo hadal qaaday damaceeda ku aadan in ay hesho qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Itoobiya ayaa waxa uu ka hadlay murugada Itoobiya hayso ee ku aadan bad la'aanta xilligan ay taagan tahay. Waxa uu sheegay in muddo 30 sano ah bad la'aan aysan ku jiri karin shacabka Itoobiya. Waxaana inta uu ku daray in Itoobiya 30 sano ka hor ay lahayd dekad iyo bad balse xilligan ay bad la'aan tahay. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa meesha waxa uusan ka saarin damciisa ku aadan in uu helo qayb ka mid ah badda Soomaaliya isagoo tusaale u soo qaatay in Itoobiya ay ku qasban tahay in ay bad hesho xoog ama xeelad. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu inta uu ku daray in Itoobiya ay ka go'an tahay iyo shacabkeedaba waa dowladda Itoobiya iyo shacabkeeda in ay helaan bad isla markaana Itoobiya laga nabadgelayo waa sida uu hadalku yiri. Qasaate iyadoo taasi ay jirto ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayaan madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro la filayo in dhawaan safar uu ku tago magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Safarka Ciro ayaa waxa la sheegayaa in uu ku qotomo sidii dowladda Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu kula kulmi lahaa magaalada Addis Ababa isla markaana ay uga warami lahaayeen wax badan oo ku aadan xiriirka Itoobiya iyo Somaliland. Waxaana labada dhinac la sheegay in ay dib u soo cusboonaysiin doonaan heshiiskoodii ku aadanaa is-afgaradkii Somaliland iyo Itoobiya gaar ahaan heshiiskii Itoobiya iyo Somaliland ay wada galeen 1 bishii Janaayo sanadkii 2024 kaas oo dhigaya in Itoobiya laga kireeyo qayb ka mid ah badda Somaliland taa beddelkeedana Itoobiya ay aqoonsanayso Somaliland. ilo xog ogaal ah oo ku dhow madaxtooyada Somaliland ayaa sheegaya in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo Itoobiya uu ka doonayo in uu ka helo aqoonsi buuxa oo ku aadan Somaliland isla markaana loo aqoonsado dowlad madax bannaan. Saacad taas beddelkeeda labada dhinac ay sii socodsiin doonaan heshiisyo dhowr ah oo ay wada gaareen oo ilaa hadda aan la dhaqan gelin. Waxyaabaha ugu horeeya ee ay doonayaan Itoobiya iyo Somaliland in ay ka wada hadlaan ayaa waxa qayb ka ah in muddo 50 sano ah Itoobiya laga kireeyo bad iyo dekad taa beddelkeedana si buuxda loo aqoonsanayo Somaliland isla markaana dowladda Itoobiya ay u aqoonsanayso dowlad madax bannaan. Hase ahaatee heshiiskii kal hore dhexmaray Somaliland iyo Itoobiya ayaa waxa ganafka ku dhuftay dowladda federaalka Soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamtay. Hase ahaatee damaca Itoobiya ee ku aadan in ay hesho qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo mar kale uu soo celiyay ayaa meesha waxa uu ka saarayaa heshiiskii kal hore ay wada gaareen dowladda federaalka iyo dowladda Itoobiya ee ku aadan in labada dowladood ay dhowraan madax banaanida iyo waliba diris wanaaga. Hase ahaatee ilaa hadda ma jiro wax warar ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ee ku aadan damaca Itoobiya ee mar kale ah in ay hesho qayb ka mid ah badda Soomaaliya.